dhageystayaal meel kasta iyo goob kasta aad naga dhageysanaysaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ka soo cusboonaatay xaaladda amni ee deegaanada Tukaraq iyo Godqaboowe oo ay isku horfadhiyeen ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada Puntland. sidoo kale waxaan warbixintan aan idinku soo gudbinaynaa wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Salmaan Cali Koore oo isna saaka gaaray xarunta deegaanka Tukaraq oo qiyaastii 50 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan xarunta gobolka Sool Ascaad. sidoo kale waxaan warbixintan idinku soo gudbinaynaa مسؤولين وهذا بنتلان أو مقعبان قبل كسول وعبد الله حاج أحمد ماير كلاس أنا بنتلان وإسنا ورباهين تا كل هذا الشيء ده هراء يسكور فريان إذا ماذا الصومالي لاني بنتلان أنا كبلونه وزيرك ورفافنته هيدها يدقنك بنتلان عبد حرسي علي qarjab oo la hadlay warbaahinta Puntland waxa uu sheegay Soomaaliland inay deegaanada Puntland ay ka wado dandaasi isla markaana waxa uu yiri waxaan anigu ku tilmaami karnaa duulaanka Soomaaliland inay tahay hadiyad loogu talagalay reer Puntland inay ka faa'iideystaan waa sida uu hadalka u dhigay meestay weerarku ma aha maartay togdheer iyo berberana weerarku ma aha hargeysana weerarku ma aha marka waxaan u maleynayaa waxa soo dideen inay yihiin hadiyada soo didhay dadka Soomaaliya sanaag iyo Puntland waxa la hadiyada la idin soo diray ka faa'iideysta dhamaantiin laakiin anaga rabeyna hadda ka faa'iideysan hadiyada idigu waa soo dideen inaan anagu ka faa'iideysan anaga doonina qodobka kale oo aan rabeyna sheego waxa weeye dadweynaha reer Puntland dhamaantood meel kasta ay joogaan tashuushan cidna ku furin ama yaan la oran waxa weeye waxaan jirinaya loo sheegay qofku naftiisa maalkiisa sharaftiisa inuu difaaco shariicada islaamka dhanka kale gudoomiyaasha Puntland ugu magacaaban magaalada Laascaanood ayaa iyana warbaahinta Puntland la hadlay iyagoo markaasi ku sugan jiidaha hore ciidamada Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Godqaboowe Cabdillah Xaaji Axmed waa maayirka Laascaanood ugu magacaaban Puntland waxa uu fariin u diray ciidamada Soomaaliland dawladda iyo maamulka Soomaaliland iyo dadweynahooda waxaan ugu nasteexaynaya oo uga digaya hadimadu ma wanaagsana dhiig dad oo daataa ma fiicna dadkaaga inaad ku khamaartaa ma fiicna ciidamada la iska soo daadiyey ee degaamo iyo dhul dawlad iyo ciidamo xoog leh ay ku sugan yihiin oo 700 kiiloomitir wiilka aad ka soo qaaday oo maanta wuxuu ku sugan yahay in yar oo kamidii og tahay anigu waxaan leeyahay wiilashan iskaga khamaarina wiilka Soomaaliyeedna waxaan isleeyahay maalin uu wax tarayaa dhimashadiisa noloshiisa anu ka jara waxaan idii ka digaya oo aan idii sheegaya ciidamo xoog badan oo wadankan u dhashay oo dagaalamaya oo dagaal loo carbiyay oo aan habeen dagaal ka bixin oo tababaran oo 3 jibaar idinka badan baa idinku hareeraysan waxaad dhex taagan tihiin bulsho ciidankaasi ka dhashay haddaba aan u jaleecno dhankaas iyo Soomaaliland wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Salmaan Cali Koore oo saaka gaaray degmada Tukaraq oo dhawaan ay la wareegeen ciidamada Soomaaliland ayaa waxa uu la kulmay odayaasha deegaanka waxaana uu kala hadlay sida ay ula shaqeyn lahaayeen ciidamada Soomaaliland sidoo kale Salmaan Cali Koore ayaa sheegay inuu hordhac u yahay wafdi caalami ah oo ka socda Soomaaliland oo la filayo dhawaanahan inay soo gaaraan deegaanka Tukaraq muhiimka ugu weyn oo halkan u yimid inay tahay inuu isii gogol xaaro waftida cusub ay soo gaari doontaa deegaanka Tukaraq anigu waxaan fikirka iigu weeraadin ku yeeray waa halow aan idinku yeernay saxo aan idinku yeernay waa halow dawlad baa imaanaysa annagu waxaanu nahay group horumaraysa inaanu dadka u diyaarino qaabkii ay dawladda ula hadli lahaayeen idinkay idin taala idinka ayay mas'uuliyadaasi idin taala inaad dadka wax weydiisan kartaan oo ummadda maskaxdooda wuxuu sheegi kartaa oo waxa aad weydiisanaysaan aad garanaysaan oo aad rag u sii yeelataan war qof keligii loo socdaa ma jiro qoys keligii loo socdaana ma jiro marka odayaashiinu intaad niman wax garanaya u yeelataan
guddi intaad guddi samaysaan haddana dad wax qori kara intaad u yeelataan baahidiinna isku dubarita. dabcan warar hoose oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland Cabduuli Gaas oo ku sugan Dhuusamareeb oo ciidamo tiro badan weydiistay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe si uu ugu xoojiyo ciidamada Puntland. sidoo kale Somaliland ayaa iyana u muuqatay inaysan dib uga laabanayn deegaanka iyadoo dhowr jeer mar hore sidan oo kale timid deegaanka Tukaraq ay u soo galeen ka bacna ay dib ugu laabteen xarumahoodii. taasna waxay cadaynaysaa degmada Tukaraq in ay Somaliland ka sameynayso fadhiisamo ciidan. dabcan sidoo kale waxay magaalada ka sameynayaan maamul iyo xarun booliis si ay uga howlgalaan hay'adaha deeq-bixiyaasha. dagaalkan ayaa weji kala yeelanaya haddii dowladda federaalka iyo Jubbaland u soo galaan si dadban waxayna soo celin kartaa dagaaladii qabaa'ilka. dhanka kale maamulka Khaatumo iyo Somaliland ayaa iyana ka midaysan sidii Somaliland u soo xuri lahayd xuduudaha ka maqan. dhageystiga Somaliland ayaa talaabada ay qaaday waxay ku dhiirigelinaysaa heshiisyadii ay Khaatumo la galeen oo ah in meel looga soo wada jeesto cid kasta oo kusoo xadgudubta xuduudaha Somaliland. daawadayaal intaasaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijkii falaqeynta iyo xiisada dagaal wixii kasoo cusboonaata warbixinada dambe aan idinku soo gudbinaynaa. waa Cabaas Madani oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.